qofku hadduu cilmi leeyahay uu dadka gaadhsiiyo dadku way u baahan yahin cid u tagto cilmigaa gaadhsiisa marka inuu gaadhsiiyana way tahay waa gaadhsiintii layna amray nebigan la amray yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik rasuulkuna uhi balliquu canii walow aaya haddaanu cilmi lahaynna waajibkiisu waa inuu horta isagu wax barto naftiisana u saxo hadduu qofku leeyahay anigu intaan garanayo un baan sheegayo xaraf dhaafin maayo lagu odhan maayo ilaa aad caalim noqonayso intaad garanaysa ha sheegin laakiin taasi waaqaca kama jirta de waxaynu aragnay dadka wax wacdiyaya dee hadal badan oo diinta ku saabsan bay soo jeediyaan oo meelo aanay garanayn bay la gashaa taasina waa halis weyn weeyi waa ta kale qofka xataa aqoon uu leeyahay dadka gaadhsiinaya u tegaya waa inuu waddo saxa u mara de waa in waxyaabaha bidaca ee arrintaa raacay waktigii nebiga aan jirin waa inu iska ilaaliyo kuwaasina way badan yihin nebigu markuu dad dacwadda soo gaadhsiinaya intuu saxaaba masaajidka sii fadhiisiyo ma odhan jirin wardiga sii haya xaggee laga keenay taas markay diinta kaga taalla marka masaajidka sii fadhiya wardiga sii haynaya yaa daliil u haya anigu haddii daliil loo keeno waan ku qancaya ila nebigii baa saa sameeyey oo qof masaajidka sii fadhiisin jira odhan jira adu wardiga sii hay waliba caqaa'id kalena ay ku dhismeen oo ay ka mid tahay in waxa weeyaan la aamino wardigii marka horeba aan sugnaan hadduu joojiyo ama uu ka seexdo in qoladii baxday ee wardiga u sii hayay balaaya ku dhacayso min ayna haada xaggey taasi ka timi waxaa la mid ah amiirkan la samaysanayo iyadoo magaalada dhexdeedii la joogo safar aan la gelin amiiru safar baynu shareecada ku naqaana lakin gidaarkaasaynu gaadhayna hebel baa inoo amiira wuxuu nebigu samayn jiray iyaduna maaha waxaa taa ka daran diinta ilaahay in la qaybiya ama banaana ood adigu tiraahdo annagu haddaanu jamaace heblaaye nahay intaasu baanu dadka u sheegaynaa intaasina mamnuuc bay naga tahy diintu waxayna fartay alamra bikuli macruuf wanahyi can kuli munkar macruuf kasta dadka waa inaynu faro wax kasta oo diinta macruuf ku ah waxaana maxaa u horeeya tawxiidka iyo caqiidada haddaad tiraa ka war anuu dadka tawxiidka iyo caqida waxaa soo masaa'il khilaafiya oo geli maayo waa halkuu nebigu diintaba ka bilaababa saxaabadiisana markuu dacwad u dirayo uu kula dardaarmi jiray inaka taأti qowman ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi ila an yuwaxid اllah oo inta wada socoto laftooda ana isku caqiidahayn oo haddii la wareysto midba wuxuu ku hadlayo oo caqaa'id kala duwan ay ka soo baxayaan diintii la kala qaybiyo la dhaha anagu fadaa'il acmaal un baanu ka hadlaynaa la fadaa'il acmaal nebigu uu ka hadli jiray xaaraantuu ka hadli jiray xalaashuu ka hadli jiray munkar oo dhan buu dadka u diidi jiray diinta si dhamaystiran waa in loo wada qaato dadkana loo wada gaadhsiiyo idkhuluu fi silmi kaafa ayuu ihi ilaahay islaamnimada si dhamaystiran u gala xagga gaadhsiintana nebi maxamed ilahay wuxuu ku uhi balliq maxay maa unzila ilayk waxa lagugu soo dejiye o dhan adigana intii nebi maxamed lagu soo dejiye o dhan intaad ka taqaano dadka inaad gaadhsiistaa ayaa kula gudban lakiin adigu manhaj kala samaysato ama cidi kuu samayso aad tiraa annaga jamaaca heblaayana la dhahaayo annagu jihaad ma gallo jihaadku soo kan diinta kamid a aduu ma diin gaaraad haysataa anugu khuruujku baan u baxnaa jihaad ma gallo waayo jihaadku diintu kamid yahay maxaad uga tegeysa markuu waktigiisu yimaado waa inaad diyaaro ahaato annagu xaggaa cilmiga iyo duruus la dhigiyo xaggaa shaqo kuma lihiine waanu socodka annaga ayaana lagu oogyahay annagu masaa-isha khilaafiga kama hadalno masaa-isha khilaafiga in la idhaa ka hadli mayno sax maaha waayo wixii la isku khilaafay ilaahay muu odhan ha ka hadlina muxuu ihi fain tanaasactum fi shay faruduu ila اllahi wاrasuul waxaan la isku khilaafay waxbaa saxa waxna waa khalad soo ma haddaad ka hadli weydo dadka yaa u kala saaraya saxdii khaladka marka walaalaha inagu wax xumaan iyo dhibaato uma hayno waa nasiixa lilah in dacwadda miisaan looga dhigo dacwaddii nebiga alayh الsalatu slam waa intaasu ujeedadu waa intaasu qof kastoo muslimiina mid dacwad ku baaqiyo mid kaleba waxaan aada ugu farxayn inaan jecellay inuu sax noqdo sida saxda inuu waafaqo inta ka dhimanna inuu aqbalo marka qof walibana inuu taa diyaar u ahaado
oo aniga haddaad tidhaahdo dacwaddaada intaasaa ka dhiman oo daliil iigu keento dee inan difaac gala maaha waa xaaraantaas waa inaan aqbalo soo ma haddaad tidhaha intaasaa ayaad ku khaldan tahay oo daliil u keento de waa inaan aqbalo maa ina idha waa manhaj culima noo samaysay oo ka leexan mayno ma tacasub qofku uu galo qof waa inaad noqoto wixii xaqnimadiisa u caddaato aqbalaya wixii khaladnimadiisa u caddaatana ka tegaya jamaacayi hebel iyo midna aanu tacasubayn yaa adiga kuu diray jamaaco gaara jamaaca hiblaaye jamaaca hiblaaye jamaaca hiblaayo ilaahay kuguma addoonsan waxa ilahay wuxuu kugu addoonsaday muslim inaad noqoto ilaahay subxana watacaala waxidaya oo keliyeynaya diinta ilaahay baranaya ku camal falaya intuu yaqaana dadka gaadhsiinaya marka aakhiradaada ha ku seegin waxaan lagugu kalifinba oo aan lagu dirinba marka culimaduna kolle masaaisha waa ka hadlaan waxaanay uga hadlayaan min baabi nasiixa bay uga hadlayaan qofka muslimka ah waxa ugu horeeya ee inuu badbaadiyo lagu adkeyn inuu naftiisa noqdo nin sheekha oo imika u dhintay ilahay u naxariisto khayr baan rajeynaya oo culimada tabliiqa ka mid a ayaa masaajid aan joogay salaad subax ka istaagay dabeetana wuxuu yidhi hadal in badan soo noqnoqdo ah ummadii hore ummatu cibaaday ahaayeen ummadda nebi maxamedna waa ummatu dacwa markii hadalkii uu dhameeyey kadib baanu isa salaano deetana waan la yaro fadhiistay wuxu sheekh hadalkaasi aad tidhi qur-aanku khilaafsan yihi ummaddan iyo ummadihii horeba dacwad iyo cibaado labadaba waa laga wada rabay ummad dacwad qura loo diray oo in cibaado loo dirin ma jirto ummad cibaado qura loo dirayoo dacwad aan loo dirinna ma jirto reer banu israa'iil ilahay maruu ka warramay muxuu ihi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calى lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casow wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahuna can munkarin facaluu munkarka inaan iska reebi jirin in lagu nacdalay buu ilaahay sheegay cibaado qura looma dirina soo markasta innagana dacwad qura laynooma dirin dee dacwad iyo cibaado labadaba laynoo diray dacwad iyo cibaado in la kala qaadana sax maba ahaba oo dacwadda lafteedu waa cibaado inaad dadka wanaagga farto xumaanta aad ka reebto cilmiga aad barto oo khayrka aad ku dhex faafiso marka masalada waxaan ku uhi adiguna iska daa in badanna jamaacadiina waan ka maqlaye kuwa kalena gaadhsii wuxuu igu uhi waan kaa aqbalay buu ihi jazaaka allahu khayran mas'alo labaadna waxaan ku uhi dadka waxaad aada ugu dhiiri gelisaan inay baxaan khuruuj waa inaad bax qofkii waxaa laga yaaba aan ku uhi inuu 10 sanadood idinla socdo iska dhaaf caqiide iyo cilmi kale uu bartee xataa salaadiisu aanay u saxsanayn weli salaadiisa jejebin ay ku jirto marka qofka dadka kale una ha tusina naftiisa horta ka bilaaba oo inuu qofku dee salaadii un bilaabo oo cimaamad uu duubto oo yidhaahdo dacwaddan ka shaqaynaya intaasuun ha ugu joojinina ee qofkii muslimkaa ile xil baa idinka saaranaya mas-uuliyade war diinta bara dhaha oo qur-aanka baro faatixada iska sax aad ku tukanayso oo salaadii iska sax salligii nebiga atixiyaadkii axkaamtii salaada baro tawxiidkii caqiidii saxda ahayd qofka bara oo dee qofkii isagu waxa kororsado ila qofkan inuu salaad un tukado oo balwadiina uu iska daayo oo deetana u idhaa daacibaan ahay ma intaasoo qura qofka laga rabaa mas-uuliyad weyn baa saaran inuu diintan uu leeyahay daacibaan ku ah inuu barto marka cilmigii ku dhiiri geliya dadkan inay cilmigii bartaan dadkan ayaan la qaybin oo loodhan ardayna meel bay noogu xaraysan tahay ururweynahan socdaana isagu cilmi baran maayo la dadkan socda ee dacwaddaanu gaadhsiinaynaa dad kale ee dacwadda ka shaqaynaya ayaa u mudan in dacwaddii la baro oo iyaga la saxo intay garanayaan ha sii wadaan oo odhan mayno dee waxaad garanaysa dadka ha u sheegin qofka ku odhan mayno adoo waddo saxa marayo bidcadana iska ilaalinaya laakiin qofkii xil iska saara intan idin raacday xil iska saara oo caqiidadii u saxa oo tawxiidkii bara oo markaa wuxuu igu yihi taana waan aqbalaynaa bu ihi marka aniga nuscigaas wey ninkaan arka anigu kamida wixii ka khaldan waan u saxa waan u sheega ujeeddaduna waa intaas weeye maaha tacasub iyo isriixriix iyo dagaal iyo wax kala in wax la kala qabsanayo waxa arrintu maaha
waa inay saa u fahmaan oo nusxiga walaalahood waa inay u dhega nuglaadaan nasteexadu waxay tahay diinta ilaahay baro oo ku camal fal dadkana intaad garanayso ay u baahan yihiin gaadhsii wallahu